beesha Mareexaan ayaa iyaduna qayladaan afka furatay kadib markii lagu jabshay deegaanka Jabsiile waxa ayna gurmadyo u dirsadeen daaroodka intiisa kale balse intaanan guda gelin xogtan oo faahfaahsan iyo jabkii cuslaa ee saakay beesha Mareexaan ku gaaray deegaanka Jabsiile waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto si uu u gaaro saaxiibo fara badan oo u ogaado xogtan isla markaana u share garay saaxiibada Facebook kugu weheliya si aynu u helno saaxiibo u qalbi furan sida adigoo kale qaybta hoose ee commentigana inoogu reeb aragtidaada ku aadan in beesha Mareexaan saakay gacanta looga dhigay deegaanka Jabsiile waad ku mahadsantahay daawade la jahanqaadkaaga aynu guda galno beelweynta Mareexaan ayaa jab culus saakay kala kulantay deegaanka Jabsiile waxaana halkaasi looga furtay gaadiid aad u fara badan iyo saanad military meydadka beesha Mareexaan ayaana deegaankaasi xilligan aan kula hadlayo dhooban gaarigan aad arki kartaan ee burobukista ah ilaa iyo 7 meyd oo beesha Mareexaan ay uga carareen halkaasi ayaa yaala waxa ayna beesha surre ay gacanta ku dhigeen hub iyo saanad aad u fara badan deegaanka Jabsiilana gacanta ayay ku dhigeen waxaana saaka beesha Mareexaan deegaankaasi loogu dhigay cashir aysan ka soo waabsan karin isla markaana ay dhabanada qabsadeen waxaan rabaa inaan kula wadaago xogta warbaahinta badankeed ay qarisay ee ah in deegaanka Jabsiile Mareexaan looga dilay tiro kor u dhaafaysa ilaa iyo 21 ruux halka beesha direed iyaduna laga dilay tiro kale oo uu kamid yahay sargaalkan aad arki kartaan oo booliska Galmudug ka tirsan deegaanka Jabsiile ee waqooyiga gobolka Galgaduud waxa saakay aroornimadii ka dhacay dagaal aad u culus oo geystay khasaare kala duwan waxa uu dagaalkaasi dhex maray beesha Mareexaan iyo beesha dir waxaana deegaankaasi lagu dilay in ka badan 30 ruux oo labada maleeshiyo ee halkaas ku dagaalantay khasaaraha soo kala gaaray dhaawacyadu aad ay u fara badan yihiin magaalooyinka Xeraale iyo magaalada Caabud Waaq ayaana dhaawacyada labada dhinac loo kala markaasi daadgureeyay sida xogaha aan ku helnay isla markaana cadeymahooda ay muuqdaan beesha Mareexaan ayaa saakay looga awood roonaaday deegaanka Jabsiile Mareexaanka waxa halkan oo ah deegaanka Jabsiile looga dilay ilaa iyo maleeshiyaad gaaraya 11 maleeshiyaad ah dhaawacyadu iyagu waa tirabeel beesha dir ama surre waxa halkan iyagana looga dilay tiro kor u dhaafaysa 11 ruux oo maleeshiyaadkooda ka tirsan beesha surre ayaa iyagu waxa ay ku faaneen isla markaana ay warbaahinta la wadaageen in ay gacanta ku dhigeen dhowr gaadiid oo beesha Mareexaan ay ka furteen gaadiidkan ayaa waxa ugu horeeya Cabdibile uu saaran yahay qoriga dhashiikaha ah ee sida darandooriga u dhaca waxaana qorigan laga furtay beesha Mareexaan sidoo kale dirtu waxa ay maanta gacanta ku dhigeen laba gaadiid oo noocyada markaasi midna uu yahay nooca ambalaasta ah ee dhaawacyada lagu qaado iyo gaari kale oo Cabdibile ah sida ay warbaahinta u soo bandhigeen beesha surre ayaa waxa ay sheegtay in ay cagta marin doonto Mareexaan deegaan walba oo ay ku sugan yihiin iyagoona ku goodiyay ilaa iyo Caabud Waaq in ay tagi doonaan beesha surre waa sida ay hadalka u dhigeen maleeshiyaadka careysan ee indhaha gudguduudan ee beesha surre ka tirsan oo saakay gacanta ku dhigay deegaanka Jabsiile oo ay Mareexaankii kaga taagroonaadeen beesha Mareexaan ayaa iyaduna qayladaan afka furatay kadib markii lagu jabshay deegaanka Jabsiile waxa ayna gurmadyo u dirsadeen daaroodka intiisa kale magaalada Galdogob ilaa iyo afka Caabud Waaq ayaa gurmadyo xoogan oo daarooda ay ka imaanayaan isla markaana xoojinayaan dagaalkan ka socda deegaanka Jabsiile maadaama beesha Mareexaan ay deegaanka Jabsiile saaka ay kala kulantay dharbaxyo xoogan oo dhabanada uga dhacday kadib markii halkaasi looga laayay dad kor u dhaafaya ilaa iyo 11 Mareexaan ah sidoo kalena laga furtay hub iyo gaadiid aad u fara badan beesha surre waxa ay gacanta ku dhigeen rag markaasi la sheegay ilaa iyo 6 inay yihiin oo dhaawacyadoodu ay markaasi culus yihiin isla markaana Mareexaanku ay uga carareen deegaanka Jabsiile xaaladu aad ay u kacsan tahay dawladda Galmudug ayaana gabi ahaanba ku fashilantay in ay waan dhex dhigto beelaha walaalaha ah ee maalin waliba deegaanadaasi isku laaya surre iyagu waxay u egyihiin kuwa markaasi aad u careysan isla markaana raba ilaa iyo laandheer inay gacanta ku dhigaan laakiin inagu ma ogin sida ay ugu suurtageli doonto damaca surre ay muujinayaan ee ah ilaa iyo laandheer iyo deegaano badan oo tawfiiq kamid yihiin oo beesha Mareexaan haatan ay gacanta ku hayso in ay iyagu gacanta ay ku dhigaan dagaalku iminka aan kula hadlayo waa uu socdaa
xabaduna labada dhinac way isweedaarsanayaan beesha mareexaan oo bilowga dagaalkan dharbaxyo kulul ay ku dhacday isla markaana deegaanka Jabsiile si xoog ah looga saaray ayaa iyagu waxa ay wacdeen gurmadyo aad u fara badan beesha leelkase ayaa dagaalkan xoojinaysa ama darbi daarood waxa ayna rabaan leelkasuhu in ay deegaanka markaasi lagu dagaalamay saaka ay ka bixiyaan beesha dir oo haatan gacan ku haynta deegaankaasi la wareegtay mareexaanku iyagu way is abaabulayaan oo magaalooyinka Caabudwaaq Balanbal iyo magaalooyin fara badan oo dhabad ay kamid tahay ayay gurmadyo xoogan ka dirsanayaan markii ay mareexaanku isi soo xoojiyaan waxay u eg tahay in mar kale ay deegaanka Jabsiile ay ku soo noqon doonaan oo ay awoodooda military ay mar kale tijaabin doonaan maadaama qacda hore xabada iyo dharbaxyada ay beesha surre kula horeysay oo haatanba deegaanka mareexaanka laga saaray ilaa dhamaadka muuqaalkan hadaad u helisay fadlan muuqaalkan like saar si uu gaaro saaxiibo fara badan adiga oo u share gareynaya saaxiibada baraha bulshada kugu heliya sayna u helno saaxiibo u qalbi furan sida adiga oo kale qaybta hoose ee commentigana aragtidaada inoogu reeb nabadgeliyo